Wargeyska New York Times ayaa warbixin uu maanta baahiyay waxa uu kaga digay Trump in uu weeraro Iran iyadoo warbixintu sheegtay dagaal kasta oo ka dhan ah Iran inuu Mareykanka wajahayo khasaare iyo dagaal daba dheeraada oo saameyn ku yeesha Bariga Dhexe iyo caalamka sabab la xiriirta Iran oo lagu sheegay inay haysato kaydka ugu weyn ee gantaalada yaalla Bariga Dhexe oo dhinac kasta oo gobolka ah gaari kara. Hogaamiyaha ciidanka RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa isagoo Kampala kula hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay diyaarado laga kiciyay dalalka gobolka ku yaala inay ka hortageen RSF inay dib u qabsato Khartoum, halka ciidanka militariga Suudaan uu ku sifeeyay Islaamiyiin ay kula dagaalamayaan gudaha Suudaan. Isla xilligaa waxa uu si adag u weeraray dowladda Sacuudiga. Waxaa kaloo uu markii ugu horeysay sheegay ujeedada RSF u adeegsato ciidanka calooshood u shaqaystayaasha ka soo jeeda Colombia kuwaas oo uu sheegay inay qabtaan shaqooyin ay ka mid yihiin soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, fulinta weerarada diyaaradaha iyo adeegsiga nidaamyada elektarooniga